waad salaamantii saaxiibayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada kanaalkan ood uga barateen muuqaalo ku saabsan dhankaas teknolojiyadda. Shalaamaanta muuqaalka raba inaan idinla wadaago wuxuu ku saabsan yahay qaabka muuqaalada aan YouTube soo geliyo aan u edit gareeyo. Muuqaalada aan YouTube soo geliyo laba mid weeye in markaas aan kamarada ku duubo muuqaalka oo si toos ah markaas aan u soo fariisto iyo in markaas aan screen recorder aan soo duubo ama shaashada kombiyuutarka ha ahaato ama mobilka shaashadiisa ha ahaato. marka muuqaalka kan ka horeeyay waxaan kaga hadlay qaabka markaas aan shaashada mobilkayga u duubo. maanta markaas waxaan baranaynaa qaabka shaashada mobilkayga aan u edit gareeyo. markaas badanaana YouTube-kayga waxa ku jira shaashada mobilkayga baan soo duubay. badanka muuqaaladaydu saas ayay u badan yihiin. marka maanta ayaan jeclaysta markaas inaan idinla wadaago muuqaalkan. ku soo dhawaada muuqaalku faahfaahsan. Audio Jungle. Okay saaxiibayaal, aan hore galo in ugu horeyn software-kan adeegsado waa software khafiif ah, computer kastana markaas aad u adeegsan kartid. software-kan kaliya waxaan u adeegsadaa markaas inaan ku edit gareeyo shaashada mobilka ama shaashada computerka markaan duubo. laakiin uma adeegsado markaas inaan videos waaweyn sidii wixii camera lagu duubay oo kale in markaas aan ku edit gareeyo uma adeegsado. waad u adeegsan kartaa laakiin color ma lahan oo muuqaalada qaar baa color u baahan oo aad saartid. marka software-kani color ma lahan color saas u si fiican ma lahan oo markaas aad ku qanci kartid oo meel kasta dhigan kartid. marka software-kan magaciisa waxa la yiraahdaa Camtasia. laga yaabay badankiina inaad wada taqaanaan oo kombiyuutaradiina uu idinku jiro. marka ugu horeyn software-kan soo kicino software-ku sidatan buu kugu soo baxaya marka interface-kiisu ugu horeyn marka waxaan sameeyaa anigu folder ayaan waxaan ku soo gurtaa markaas wixii aan design gareynayay ama muuqaalkii aan sameynayay. kan waxa weeye mobilka shaashadiisa aan soo duubay. kana markaas waa intro-gaygii. saddexdana waxa weeye mobile frame camal mobilka aan saari lahaa waxa weeye muuqaalka. marka saddexdan hadad markaas u baahan tihiin waxaan idin soo dhigayaa description-ka muuqaalkan aad daawanaysiin. linkiga ku dhufo kadib halka kala soo deg. waa transparency wax background ma lahan. hadad markaas u baahantahay halka kala soo deg. ugu horeyn marka software-ka ayaan ku noqon. marka hore waxaan sameeyaa background ayaan soo gashtaa. adigu waad bila background waad isticmaali kartaa oo seeska haddii hadda tusaale ahaan mobilka oo kale aan soo geliyo videogaagu wuxuu noqonayaa sees portrait ah. laakiin tusaale ahaan intro-ga ugu soo horgelinayaa background-ka waan iska dhaafayaa. intro-ga ayaan ugu soo horgelinayaa. intro-ga markaan qaabkan u soo geliyo xaggan ayaan isaga fogeyn maadaama muuqaalo kale ay ka horeeyaan. marka waxaan sameynayaa background-ka madowga ah ayaan iska bedelayaa. waxaan sameynayaa meeshan tirada ku qoranta xagga sare inaan ku dhufto kadib project setting aan kasi doorto kadib markaas aan kasi doorto meeshan color-ka aan ka dhigo markaas color-kii markaas aad u baahan tahay baad ka dhiganaysaa bluegan oo kale ka dhigan kadibna waxaan leeyahay markaas apply. markaas aan apply gareeyo kaliya waxaan ku noqonayaa markaas folder-kii waxaan soo dooranayaa markaas videoga kadib halkan timeline-ka ayaan ku sii deyn videoga. ugu horeyn marka waxaan sameynayaa videoga xaggan ayaan u yar riixayaa. marka tusaale ahaan khaladaadka kale videoga waad ka saaraysaa. waxaan sameynayaa hadda tusaale ahaan intan oo dhan waan aamusanahay intan hore oo dhan waan aamusanahay kaliya meesha ugu aan rabo inaan ka hadla markaas ayaan lugtan keenayaa. kadib qaybtan ayaan ku dhufanayaa markaas split-ka ah. kadib videogii hadda dhexda ayuu ka kala jarmay. marka waxaan leeyahay right click kadibna waxaan leeyahay delete. qaybtan delete dhahayo maaha qaybtan waa qaybtan ayaan delete dhahayaa. marka kadib markaan qaybtan delete saas u dhaho xaggan ayaan marka muuqaalka u jiidanayaa. ugu horeyn marka haddii khaladaad uu leeyahay oo kale waad ka saari kartaa muuqaalkaaga oo split-kaas aad u isticmaalaysaa saasaad khaladaadka uga saaraysaa. kadib hadda waxaa ujeedaa markaas girgirkan inuu haysto xoogaa waxaan rabaa inaan dib u yar saaro. qaybtan scale-ka waa isticmaali kartaa kana waa isticmaali kartaa inaad xaggan saas u wadid. marka qaybta scale-ka hadda 60 iyo wuxuu marayaa 7. waxaan rabaa markaas 63 iyo waxbaan ka dhiganayaa 63 meelahaas ayaan badanaa ka dhigtaa. kadib markaas saas dhaho kaliya markaas waxaan ku laabanayaa folder-kii waxaan soo qaadanayaa markaas frame-ka tusaale ahaan kanoo kale aan isticmaalayaa waan soo jiidayaa kadib qaybtanaan dul saarayaa. marka xaggaas banaanka waan iska dhigayaa kadib laga yaabo inuu automatic ku la ekaadaba sida kanoo kale. marka xoogaa hadda xaggaas oo kale waxbuu qariyay meelaha qaar waad sixi kartaa. marka muhiimadeenu adiga dee gacanta baad ku fadhiisanaysaa. waxaa sameynaysaa markuu saa kuugu saarmo kaliya videoga iyo markaas waxaa isleekaysiinaysaa mobile frame-ka. kadib hadda waxaa ujeedaa markaas in aan habaynay oo hadda muuqaalka sidan waa lagu daawan karaa. laakiin waxa kaliya ka dhiman waxa weeye
haddii dee transition tahay waad kusoo darsan kartaa. hadday tahay waxa la yiraahdo jarjaridda muuqaalka oo kale, soo dhaweyn oo kale, waxyaabahaas oo dhan waa u isticmaali kartaa. marka ugu horeyn waxaa la sameeyaa muuqaalka iyo codka waa la kala reebaa. maadaama aad zoom isticmaalaysid, zoomku laba mid weeye, in markaas qaybtan animationka isticmaashid, labadoodan ayaad isku helad garanaysaa marka hore. kadib qaybtana right click leedahay korkooda ah, kadib waxaad leedahay markaas group marka saa kaaga dhigo muuqaalkii iyo framekii ayuu isugu kaa dhejiyay hadda. kadibna saa zoom waad kusoo samayn kartaa, saa waa usoo dhaweyn kartaa. hadda muuqaalkaaga saa waa usoo dhaweyn kartaa, laakiin anigu zoom kale ayaan isticmaalaa. zoomtaan isticmaala waxa weeye, ugu horeyn waan kala furayaa, ungroup ayaan dhahayaa. kadib waxaan sameynayaa markaas codka iyo videoga ayaan kala saarayaa. kan waa framekii, kan sare waa frameka mobile frameki weeye, kanna waa videoga iyo codkii wada socda. marka waxaan sameynayaa right click ayaan leeyahay, kadibna qaybtan ayaan ku dhufanaya. markaas waxaan leeyahay codka iyo videoga ii kala saar. kadib markuu sidatan kuugu kala saaro, hadda 3 layer ayuu noqday. layerkan waa iska garanaysaa waa mobile frameka, kanna waa codkii, kanna waxa weeye videogii. marka codka xagga sare ii mari, codka xagga sare ii mari, kadibna waxaa ii soo qaadaa frameka mobileka. kadib labadan isugu kadhij, haddaba group iga dhig. labadan waxa weeye waa mobile framekii iyo videogii. kadib right click ayaan leeyahay, markaas group ayaan leeyahay. xagga sare marka waxaa kusoo haray codkii oo khaliya. codka markaas bartiisaas ha yaalo aga qaadin, maadaama aad zoom iyo wax isticmaalaysid. zoomka isticmaala marka waxa weeye, tusaale ahaan videoga markuu meelahan marayo kale baan waxaan rabaa inaan qof dadka aan wax tuso oo kale, oo meel aan soo dhaweeyo oo kale. kaliya waxaan sameynayaa videoga ayaan dooranayaa. kan waa codkii, kanna waa videogii iyo framekii wada socda. kadib dhexda ayaan ka kala jarayaa, barta aan rabo inuu kasoo dhawaado ayaan kala jarayaa. markaan kala jaro xoogaa ayaan horey u soconaya. marka meesha aan rabo markaas inuu ku ekaado dee soo dhaweyntu inbay ku eg tahay. marka saa usoo dhawaado haddana dib unu noqdo weeye. marka meesha ay ku eg tahay ayaan tegaya haddana, kadibna haddana split ayaan leeyahay, waan kala jarayaa. kadib waxaan sameynayaa qaybtan dhex baan rabaa markaas inaan soo dhaweeyo. kaliya qaybtana isticmaalaya. scalekan waa isticmaali kartaa haddaad dee tiri ahaan u garanaysid, laakiin qaybtana ka fiican marka wax soo dhaweynaysid inaad sidan usoo jiidid. kadibna markaas meesha ratid dee dadka asaa ku tustid, asaa usoo dhaweysid, saaid usoo dhaweysid haddaa ratid, asaas usoo dhaweysid. marka hadda muuqaalka ayaan daaranaa, si codka iska boos gareeyo, codka silent ayaan iska gelin. muuqaalka ayaan hadda daaraya. haddaba marka waxaa ujeedaa markuu halkaa marayay uu soo dhawaaday oo sidan ayuu usoo dhawaaday. markuu halkan marayana uu dee qaybtan kale soo aadana dib ayuu seeskiisi ku noqonayaa. marka qaabkaasaan adeegsadaa. qaabkan kale waa adeegsan kartaa inaad qaybtan animationska tegtid, kadibna qaybtan animationka aad kasii tegtid. haddaad zoomta tegtid, zoomta waa iska caadi, animationkana waa isticmaali kartaa oo waxyaabo kale ayaa ku jira. marka zoomtan ayaa isticmaalaysaa oo sidan ayaa usoo dhaweynaysaa. qaybtan way yar dhib badan tahay, saas markaa usoo dhaweysid haddana waxaa laga rabaa inaad meeshii kala tagtid, kadibna haddana aad dib u saartid. marka koley dee tii aan hadda ku tusaya ayaa ka yar fudud, oo laga yaaba seeskii hore inuu kaa khaldamaba. marka koley qaabkaas ayaan u sameeyaa muuqaaladayda qaybta screenka ah. markaa shaashadda markaan duubayo, badanaa transitionada aan adeegsadana waa kuwan. hadday fading tahay waa kuwan, oo fading waa kan, sidan ayaa usoo saaraysaa, wuu iska soo baxaya, qunyar ayuu soo baxayaa. tusaale ahaan badanaa kan oo kalena waan adeegsadaa. kan oo kale waxa weye inuu telefonka wareejiyo oo kale, inuu sidan kusoo galo. marka transitionka aday kugu xirantay wixii markaa aad kusoo gelinaysa. kan oo kale ha kusoo galaad leedahay, qaabkan oo kale ha usoo galo. marka waa qaabkaas. marka qaabka muuqaaladeeda aan u hagaajiyo isagoo telefoonana haddaad u baahan tihiin, commentigan ayaad igaga soo codsan kartaa. haddii markaa ay bataan dadka markaas soo dalbada muuqaal ayaan idinku tixgelin insha allah. maantan intaas ayaan jeclaysta markaas inaan idinla wadaago. insha allah intaas kusoo noqonana waxaa idinkaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.